shaqaalahan caafimaad ee maanta ay tababarka u furtay wasaaradda caafimaadka Puntland oo kor u dhaafaya ilaa 100 ayaa ujeedka tababarkood waxa uu salka ku hayay sida ay uga jawaabi lahaayeen xaaladda caafimaad darrada ee soo wajihi karta dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada Puntland. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cabdirasaaq Xirsi Xasan ayaa faahfaahin kooban waxa uu ka bixiyay shaqaalahan caafimaad shaqada ay bulshada abaartu ay saameysay ay u qabanayaan. kaliya halkaas saaka waxaan u fadhinaa inaynu furitaan u sameeyno shaqaalaha kan boqolka dheeraadka gaaray oo insha Allah rabna in labada biro soo socota lagu tababari doono sidii loola tacaali lahaa ka jawaabista abaaraha gobolada dhan bay dadka ka wada yimaadeen. waxaan rajaynayaa xaflad ka weyn oo maanta kala baxayaan mas'uuliyiinta waddanka oo dhan ka soo qayb gali doonaan inaynu insha Allah isku nimaadno kaliya inaan halka tababarkan inaan furno oo loo sheegi doono dadkaas waxay qaadan doonaan 3 biro soo socota ayaa loogu talagalay. tiimkan waxay ka kooban yihiin muxuu ahaa tiim kooxaha kali 26 tiim oo rabnay inay waddanka ka howlgalaan. 3 beri dhakhaatiirta iyo shaqaalaha wasaaradda xarunta dhexe ayaa tababari doona. waxaan ku tababari doonaa wixii aad qaban lahaydeen haddii lahayd marka aad wareegi doontaan. waxaan kusoo runta u mahadcelinayaa hay'adda UNICEF Eric oo ka mid ahaa saraakiisha hay'adda UNICEF kana mid ahaa ka soo qaybgalayaasha furitaanka tababarkan loo qabtay shaqaalaha caafimaad ayaa sheegay in abaartii Soomaaliya soo martay 2011 ay ogaadeen in dad badan ay u dhinteen xanuuno ka dhashay abaartaasi. kooxdan caafimaadna loo tababarayo sidii ay uga jawaabi lahaayeen cudurrada ka dhalan kara abaarta haatan Soomaaliya ka taagan. If we look back to 2011 with the drought and then the famine, I think one of the important lessons that we learned was that the biggest killer was not the lack of food, but it was measles and diarrheal diseases. markii loo eego labadii abaartii dhacday 2011 waxaan ogaanay ama ka baranay inaysan ahayn wixii dadka leeynayay cunto xumo kaliya ama cunto la'aan kaliya, laakiin waxa kale oo jiray jadeeco iyo diyaaray ama suban dadka leeynayay. And this is why this training and this intervention with the mobile teams is so important. sababta marka ay muhiimad u tahay in tiimabkan caafimaadka la diro oo loo diro inay soo daweeyaan jadeecadii iyo subankii arrintaas ayaa muhiim ah. ugu dambeyn waxaa ka hadlay munaasabadda tababarka loogu furayay shaqaalahan caafimaad wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Cabdinaasir Cismaan Ciise Cuuke waxaana uu kula dardaarmay shaqaalaha caafimaad inay si taxadar leh u wajahaan tabashooyinka caafimaad ee ay sheeganayaan dadka xanuunada ka cabanaya. waxa maanta tababarka u qaadanaysaan ama horeyba aad u qabteen laakiin aad u socotaan waad garanaysaan in xaaladda lagu jiro waxa laga yaabaa cudurro aydan horey ula kulmin la kulantaan. tababarku muhiimadiisu waxa weeye marka at least markay ugu yar tahay case definitionska inaad dusha ka haysan rabto. waxaan rajaynayaa training waa qaadan doontaan laakiin in jeebku idinku wada jiro case definition laboratory idin lama socdo. waxaa la rabaa marka waxa hagaa qofka clinicianka oo raba inuu maleeyo calaamadahan waa cudurkee in uu dusha ka hayo case definitionska macnaha ama case-ka sida loo micneeyo marka la sheegayo. for example qandhooyin fara badan baa jira, qandhadaasu maxay ku darsatay waxaas waa inaad oran kartaa. haddii waxa la socdaan waa malaria, haddii waxa la socdaan waa jadeeco waa measles, waa inaad oran karaysaan. ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa laga soo kala xulay xarumaha caafimaad ee ka jira gobolada Puntland. Cabdi Fataax Cabdullaahi, Kalson TV, Garowe.